السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي meeshaad naga daawanaysaan waa chef Braro soo dhawaada maanta waxaan wadnaa alaab casri ah alaabtan waa boorash innaba caadi ma ahan waa boorash iyo sabiib baa la isku sameeyay muhiimadu waa intaas alaabtan kaala iska arag aad ayaad uga heli doontaa haddaad nala sii joogtid waxaan kaa codsanaynaa inaad sii share garaysid saaxiibadaada la sii wadaagtid oo aad ka faa'iidaysataan bisha Ramadaan haddii alla idmo alaabtan innaba caadi ma ahan Ramadaanta kaliya ma ahan mar walba quraac ahaan way ku fiican tahay ilmaha way u fiican tahay qofkii maanta oo dhan soomanaana way u fiican tahay waa cunno aad u macaan oo dee waxyaalo badan baa la isku daray insha Allah waad arki doontaan reseptiga haddii alla idmo alaabtaas waa ujeedaa dhinacaasna waa moos dhinacaasna waa timir kaale iska arag waa aad baad uga heli doontaan waa hubaal haddaad nala sii joogtid soo dhawaada shaahina soo shubta kursigiina soo qaata intaan ka sameynay oo fudud waqti badanna ma gelinaysid waa hubaal intana gurigaaga way wada yaalaan laakiin sidaan hadda iskugu dardarsatid waa sida u wanaagsan oo u samaysan kartid halkaas waxaa noo yaala hal koob oo boorash ah sidoo kale timir lafaha kasoo saaranay waa sabiib halkaas waxaa noo yaala sokor halka waxaa noo yaalo caano bulvar ah iyo hayl bulvar ah iyo vanilla biyahaasaan isticmaali doonaa insha Allah digsi baa u baahan tahay digsi soo qaado marka hore waxaad isku daraysaa biyaha iyo sonkorta iyo caanaha iyo heylka iyo vanilyaha alaabtan caraf iyo macaan iyo wax walba way ku idishahay intaadan digsiga dabka saaran horta waxaan isticmaalanaa boorashkaas oo wanaagsan boorashkaas aad ayuu u fiican yahay waana boorashka madow intaasaan isku dardarsanaynaa haddii alla idmo boorashka haysatid adiga waad ka samaysan kartaa annaga maadaama la soomaya kaasaan ugu talagalnay wixii dhan waa isku dardarsanay boorashka unbaa hadda noo dhiman timirtana waa marka u dambeeya insha Allah isticmaali doonaa si fiican iskugu walaaq dabkan saaranay markii xoogaa qandac noo soo noqdaan boorash ku darsanay ha ka dul tegin walaaq marka istiraadada uu bisil yahay waqti badan ma qaata boorashku 3 daqiiqo ugu badan markuu si fiican aad aragtid inuu bislaado insha Allah markaas baad ka damin kartaa waa kaasa alaabtii saasi kusoo baxday kaaliska arag weli wuu jilicsan yahay laakiin finijerka gashanayna haddii alla idmo baaquligaas soo qaadanay aan ku shubanay baaquligaas iyo baaquli kale waa adiga halka boorashka isticmaalna wax badan ma ahayn dad badan baan cuni kara halka koob awal meeshii hal qof ama laba qof ay cuni lahaayeen waxayna u cunayaan sababtoo ah wax badan oo waxa ku jiro dee extra ah caanihii vaniliyii haylkii timirtii mooskii saas u badanayaa oo 3 qof ilaa 5 qof ay ku cuni kartaa finijerka gelinayno saac ayuu noogu jiray waa ujeedaa hadda waxaan sameynaynaa kaas moos baan ka dhigaynaa kaasna timir nin walba dooqiisa ka ciyaaro weeye saasaan u samaysanaynaa insha Allah kaasna waxaan saaranaynaa timirta si fiican timirta u saarsaar hadhow dee kaaliska arag sida hore u aragteen si waxaan u jaranaynaa inaan cake cunayno oo kale wuu soo qaboobay boorashka hadduu soo qaboobo weli finijerka gelisid waa hubaal wuu is qabsanayaa oo ma aha dee boorash socsocdo insha Allah boorashka dhowr nooca loo sameeyaa waa soo gelin doonaa bishaan Ramadaan uga faa'iidaysanaysaan haddii alla idmo la caafimaad wada qabo kulligeen saasaan sameynay waxaan u baahan tahay wax yar oo qorfuhu aad ayuu u macaaneeyaa boorashka markaa ku cunaysid shahmiirkaasaan soo qaadanay si yar ayaa korka hana iska badanin dee boorashka haddaad maanta oo dhan sooman tahay qorfaha waa haddaa iska badisid waa dhib saasaan sameynay insha Allah caanaha hadhow qofkii xoogaa gurtaba hadhow korku kaga darsanayaa weel yar baan soo qaadanay insha Allah waxaan sameynaynaa halkaana xoogaan ka guranaynaa halkaasna xoogaa ka bacdi waa sidaa u cuni lahayd baan ku tusayaa ma fahantay sidaa tooskii waa u cuni kartaa haddaadan caanaha rabinin haddaa caanaha rabtidne wadadaas hadda aan u maray unbaad u maraysaa alaabtan asxaabay waa ujeedaan aad ayuu macaan tahay waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysataan adinkana aad soo baraweysaan indhiinaana idin macalina dee alaabta sabiibka vanilyaha leh haylka leh qorfaha leh aad bay u macaan tahay aad bayna u caraf badan tahay caanaha kor kaga darsanaysa qof walba hadduu intaas markuu afra ka bacdi uu cuno ama xilliga afurka lagu guda jiro waa kaaliska arag asxaabay aad ayaad u mahadsantihiin daawashadiina insha Allah waxaan rajaynayaa inaad sii share garaysaan saaxiibadiina si uga faa'iidaystaan aad la wadaagtaan annagana idin waxaan xaq u leenahay idin ilaawintaasna waa ballan aad ayaad u mahadsantihiin